ma jeceshahay inaad wax ka beddesho qaabka hanaanka jidhkaaga si uu u noqdo mid qurux badan ma sarabtaa inaad ka badbaado xanuuno badan oo ay hormood u tahay jimicsi la'aantu haddaba da' kasta oo tahay rag iyo dumar la xiriir xarunta jimicsiga ee Rahma Fitness Center ee magaalada aqalka cad ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sabtidii shalay uu sheegay in dhigiisa Russia Vladimir Putin uu duulaan Ruushka ku qaadayo Ukraine uu sababi doono dhibaato baasan oo soo gaarta aadanaha. Biden ayaa sidoo kale Putin u sheegay in galbeedka ay ka go'an tahay in xasarada lagu dhameeyo dariiqa diblomaasiyadda laakiin taasi si lamid ah ugu diyaar garoobeen xaaladaha kale. aqalka cad ma bixin faahfaahin ku aadan in wada hadalkii khadka telefoonka ku dhex maray shalay Biden iyo Putin ee qaatay muddada saacada ay ahayd uu hoos u dhigi karo halista dagaalka suurtagal ah inay tahay inuu ka qarxo Yurub. Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanka iyo xulafadiisu ay jawaab degdeg ah oo kama dambaysa ay ka bixin doonaan isla markaana cunaqabatayn ay ku soo rogi doonaan haddii Moscow ay ka dhabayso weerarka ay rabto inay ku qaado dalka ay dariska la ah ee Ukraine. dhanka kale in ka badan 10 wadan ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda ka jooga Ukraine inay si degdeg ah uga baxaan sababo la xiriira suurtagalnimada dagaal daqiiqad walba ka bilaabmi kara Ukraine. dalalkaasi oo ay ka mid yihiin Mareykanka, Canada, Ingiriiska, Jarmalka, Australia, Japan, Netherlands iyo Talyaaniga iyo Israel. guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa maanta shaaciyay jalwadka doorashada 3 kamid ah kuraasta golaha shacabka ee gobolada waqooyi Somaliland kuwaasi oo lagu qabanayo magaalada Muqdisho. qoraal ka soo baxay guddiga doorashada gobolada waqooyi ee Somaliland ayaa lagu shaaciyay in doorashada 4 kursi ee kala ah Hob 264, Hob 224, Hob 242 ay dhici doonto 17 bishan. 3 kursi oo doorashadooda la qabanayo iyo xubnaha ku fadhiya waxay kala yihiin Hob 264 oo uu ku fadhiyay Cabdifataax Ismaaciil Daahir, Hob 224 oo hore ugu fadhiyay wasiirka dastuurka Saalax Axmed Jaamac oo u wareegay dhinaca aqalka sare, Hob 242 oo ay hadda ku fadhido Faadumo Ismaaciil Xuseen. guddiga hirgelinta doorashooyinka gobolada waqooyi ayaa wada dirdirgelinta doorashooyinka golaha shacabka waxaana ay hore u qabteen kuraas fara badan oo ka tirsan gobolada waqooyi. Sheekh Hamdan bin Said Al Nahyan wakiilka gobolka Al Dhafra ahna gudoomiyaha bisha cas ee Imaaraadka Carabta ee ERC ayaa amray xoojinta howlaha gargaarka ah ee loogu talagalay dadka Soomaaliyeed ee ay abaaruhu saameeyeen. arrintan ayaa waxaa ka dambeysay xiriir uu la yeeshay wafdiga bisha cas ee haatan ku sugan Soomaaliya si barnaamijyo bini'aadanimo uga fuliyaan gobolada ay aafeeyeen abaaruhu. Sheekh Hamdan bin Said Al Nahyan ayaa waxa uu warbixin ka dhageystay madaxa bisha cas Maxamed Khamiis Al Kaabi iyaga oo uga waramay xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya guud ahaan faahfaahinta barnaamijka gurmadka ah ee ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya. Imaaraadku wax dadaal ah lama hari doono si ay u daboolaan baahiyaha bini'aadanimo ee Soomaaliya iyo horumarinta adeegyada lagama maarmaanka ah ee dhammaanba dhinacyada gargaarka ah ayuu yiri Said Al Nahyan. Soomaaliya ayaa waxa ka taagan abaartii ugu xumayd oo kamid ah abaarihii muddo 10 sano ah soo mara. sanadkii 2011 ay ahayd markii ay Soomaaliya ku dhacday abaartii ugu xumayd taas oo sababtay in boqolaal qof ay u geeriyoodaan gaajo iyo haraad. ma jeceshahay inaad wax ka beddesho qaabka hanaanka jidhkaaga si uu u noqdo mid qurux badan ma sarabtaa inaad ka badbaado xanuuno badan oo ay hormood u tahay jimicsi la'aantu haddaba da' kasta oo tahay rag iyo dumar la xiriir xarunta jimicsiga ee Rahma Fitness Center ee magaalada